maanta magaalada Jowhar waxaa soo gaaray wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya oo ay qayb ka ahaayeen odayaal dhaqameed ka soo jeeda gobolka Hiiraan waxaana garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar ku soo dhaweeyay wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo horey u joogay magaalada iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa sheegay in Jowhar ay u yimaadeen dadajinta shirka maamul sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe isla markaana dhawaan xal laga gaari doono khilaafyada jiro saakan Khartoum ka soo baxnay haddana waxaan soo gaaray magaalada Jowhar si aan hore ugu sii ambaqaadno hore socodkii iyo geed socodkii shirkii labada gobol Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan wafdiga waxay ku heliyay odayaal dhaqan oo reer Hiiraan ah oo u yimid inay shirka ayaguna meeshan uga sii qayb qaataan dhammaan inta maqan mar walba waxaan u baaqaynaa taladu waa naga dhaxaysaa aan tashano Soomaaliyada cusub go'aankeeda anagu kaliya ma aanan gaarin inay federaal noqoto mar hore la gaaray dadka labadan gobol waxa kaliya ay u baahan yihiin xitaa maamul ay doorteen oo Soomaaliyada hadda maanta arrimeeda iska wareysata inay samaystaan ugana qayb qaataan waa arkaysaan wadanka abaaraha iyo duufaha iyo waxa ka jira maamulkii nooga hooseyn lahaa oo anaga aan asaga kala shaqeyn lahayn in la dadajiyaan codsanayna waa ka wareysaan wajigii labaad ee shirka inaan furnay maalintii talaadadii waxaan u nimid inaan odayaashii wareysano meesha wax marinayaan mar walbana waxaan ka shaqeyn doonaa ilaa shirku uu si guul ugu soo gabagabo in meeshaas laga sii socdo sidoo kale mid ka mid ah madax dhaqameedyada ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa isna halkaasi ka sheegay waxaan rabnaa markaa inaan idin sheegno awada ma diidana shirka waa raalli ka yahay shirka ugaaskuna waa la iska warqaba dhibaato badan ma jirto hadda waxa la xalin doona ayaa jira moogay waxaan la xalin karin ma jiraan waxaan ma taqaanaa idin ku nimid maanta shirka labada gobol inuu hawshiisu ay socoto inuu dhaxalgal noqdo sida beelaha kale oo Soomaaliyeed iyo maamul goboleedka ka jira Soomaaliya ka jira inuu la mid noqdo hadda wuu ka harsan yahay waxaad ogtihiin maamul goboleedyada kale madaxweynayaashoodu waxay ka qayb galaan shirka labadan gobol kama qayb galaan waxaan u nimid labadan gobol inay ka qayb galaan Axmed Saciid Axmed Honkebel TV Jowhar